dalka Djibouti ayaa waxa uu shir uga furmay maayarada caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Somaliland shirkan oo uu hogaaminayay furayna madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wuxuu ka furmay hotelka Kambeski ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti shirkani ayaa ku saabsan maamul dadejinta iyo hoggaanka dawladaha hoose ee maayarada dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana shirkaasi maayarada hogaaminayay maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland Cabdikariin Axmed Muuge sidoo kale waxa ayna qayb ka ahayd maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Djibouti shirkani ayaa muddo 3 maalmood ka socon doona wadanka Djibouti waa markii ugu horeysay ee dalka Djibouti lagu qabto shirka maayarada caasimadda iyo gobolada degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Somaliland ku hadlaya shicibka ku dhaqan caasimadda Djibouti aan madaxa ka ahay anigoo maayarkii magaalada Djibouti caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti iyo magacayga gudoomiyaha ururka ku boobeen shanta gobol iyo caasimadda ururka maamul hoosaadka ee Jamhuuriyadda Djibouti waxaan igu soo dhaweynayaa anigoo igu soo dhaweynayaa wasallam mudanayaal iyo marweyn dhammaan maayarada caasimadda Djibouti marwa Faadumo dhammaan maayarada ka yimid Jamhuuriyadda Somaliland hay'adda UNDP hortii mashruucan daadiinaysa wasaaradda arrimaha gudaha dhammaantiin marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa runtii maanta sharaf weyn iyo farxadii ah inaan ka soo qayb galo ama halkan maanta runtii Jamhuuriyadda Djibouti ee halkan nagu soo dhaweysay maartay runtii ilaa maantii aan nimada ilaa maanta saaxiibi nagu ah inoo garab socda maayaradu ka kooban runtii heegan u ah soo dhaweynta maxay wufuudda ka timaada Jamhuuriyadda Somaliland runtii de waad ka warhaysaan oo inta qudheeda maayaradu dhinaca nagala shaqeynaysay taa haddaan ka gudbo runtii waxaan jecelahay insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan koorskan maanta oo ah hogaaminta suuban runtii waa koors aad u wanaagsan qudheeda 2001 baan ku qaatay magaalada London waxaan jecelahay runtii markaad ku noqotaan gobolada degmooyinka aad ka timaadeen iyo goboladiiba inaad uga sii faa'iideyn doontaan dadka kale runtii halka jooga ee golaha deegaanka runtii laga soo doortay sida Cabdirashiid uu sheegay halka Cabdirashiid jooga runtii waan joogay Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti